dawlad kasta oo ku soo shaqeysa dictatoriye masiirkoodu waxay ahayd baaba iyo burbur taariikh xunayna ka tagtay teeni shalay ahaadaan ugu horeysay 30 sano dagaal sokeeyahay nooga tagtay oo wali xal la'ana macquul mata hadda in haddana dib aan u bilaabno sheekada ku celin mararka qaar waxa islaada Soomaalidu nin kastaba wuxuu rabaa inuu Maxamed Siyaad barano war aqli ma aha Maxamed Siyaad barada maanta dii la soo celiso wuxuu ku khasbanayso u fikir jiray ka duwan inuu fikir oo ku khasban marka aqliyadaas waxa loo baahan la iska dhigo dadkaan waa dad sharci waa dad dawladnimo waa dad raba nidaam iyo kala dambeyn iyo is-ixtiraam taas loo baahan in lagu shaqeeyo dawladuna waa cid ugu horeyso oo laga rabo inay sharciga ixtiraamto marka runtii arinta waxay nagu bixinaysaa inaan u istaagno oo foojignaano tilaab kasta la qaaday dalkan dawladnimadiisa waxa loo soo maray duruuf adag dhibaatooyin fara badan dad badan oo dhintay kuwa badan oo dhaawacmay maanta raga waxay rabaan ka sameeyaan xataa natiijo kama fikiraan garoonka diyaaradda dadka dii laga celiyo maxaa dhici kara xataa isma weydiinayaan dalkan dadku qoriyo waa haystaa wali xanuunka waa haya cadaalad darada waa dul saaran tahay albaabadu waa xiran yihiin jid la mari kara ma jiro hadaa qofka ceejiso maxaa ka iimaanayso inaas weydiisid ma aqal leedahay marka runtii waxa muuqanaysa qofka caadiga ah oo normalka aqliga inuu ka hooseeyo aqliga dawladda I'm sorry to say that qofka caadiga ah oo normalka Soomaaliga aqliga waa ka hooseeyo dawladdan waxa laga rabaa inay dadka dhan ka horeyso oo institutionadeedu u adeegsato waxa ugu fiican ay sameyn karto arinta madaxweynuhu ka dhawaajiyay oo ah in la toojar gareeyo dadka ganacsatada mesela shirkadaha diyaaradaha iyo civil aviation waxa rabaa inay bareeraan oo ay dhahaan go'aankaas annaga soo saarnay siyaasi waay laakiin ina adeegsaday wiilal masaakiin oo soo shaqo tagay oo reerkooda u soo shaqo tagay waa nasiib darro haddana madaxdii qaar kamid ay handadaan oo ay dhahaan tilaabo laga qaado oo maxaa tilaabo ka qaadaysaa adaa dambiile qofkan waa shaqaystaa waxa siisa shati oo ku duulo shuruudiyo soo buuxiyay waa ganacsana waqtigiisa yaa cuntay madax wareer ay ku riday garoonka marka uu tagana biyo kuma jiraan waa marka yaa dambiila أنا وحن قبا شركة إنها دعوتان قباني مش دولة إنها دعوة شركة إنها دعوتان قبا ودعوة كفرت السيفل أفيشن كي دولة شذا صح لا تصبح ماذا شان وحي أتعجنت حقوق المواطنين الصومالية يعني هذا الكريم اللي ظلمنا مالين كست ظلم كاسي مثل ماذا حفيشة الدولة ذكر عن مالين كست صومالية مغلى عبشدينا سوق قارسية ماذا شان والله ثم والله ديارنا وقادنا مش أقول سريسان قارسيننا مقالة ذان موريانا هي سجلت الصومة ولا لا دقال موال بحش مصابنتي إثيوبيانا سوق له محل وسمي ولا بحي الشباب قبصدي مكحوق بديهن انت كم حوق والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله هذا سن جوجين وابحنينا وقف كان شرعي رب المحول نقول فيري بل دغيستا قف كان شرعي رب المحول نقول جوجا محول نقول حكومه مريانيمو ما أقول وادينا مريانيمو أنك الشرع إن لسه حكومة ربنا أنك أقول هنا نقول حكومة لكن ظلم كان جوكتة هو صعدة ما أقبلين من لا أقبلكم نفتنا أو مقادين قف صومالنا أو مقادين وقاعد إن شاء الله مركي عن كورتي إن نوحان عندنا قصوها ونسي عندنا قصوها قربش كشمير قرات كان هذا فلا الحمد لله فضلك ما أنت واخد قرات بدلنا وكاغون بدلنا هاي صاحب بدلنا أنا نقولنا برنا ما أنت ظلمي ما أقولين ما نقبلين دل كان شرعي وليه هاي شرع قاصرنا على وكالة بنبه الشرع قاعد كبحث هرتاد أنت عجنا أكو تلقش ومحيش أبو قدوين وحيو قدوين لمار وحيو قدوين لمار كم وقت توجر قري وحوكو الدين تاني قصيد عن ربو آمن كان وحوكو الرسول عن ربو ولا كنت توجر قري محيو كلا دوين
waxay kala duwan lama labaduna waa qarandiid waana qarandumis waa Soomaalidiid waa Soomaalidiid waa midnimadiid marka waxaan leenahay kafa bad ku joogsada meeshiina ku joogsada Soomaalidu maanta maalintii la baxsan jira ma aha dawladnimada waa la idinkaga faham badan yahay waa la idinkaga xoogaarsan yahay maantana dadku waa soo jeedaan marka waxaan leenahay waxa taagantiin maanta aqal daradiina gargaar bani aadanimo lama geey karo dad dhibaataysan oo Soomaaliya lama gaarsiin karo baladweyne lama geey karo yaa idinka aqbalay ma jirto marka waxaan rabaa walaalahay inaan isku khaldamin inta ay sharciga dhowrayaan sharciga aan dhowrayna haddii sharciga diidaan annagana waa diidna iyaga waxaan rabaa nuqdo kale in aan ugu gudbo waxaa la yiraahdaa xurriyadda iyo xuquuqda waa la soo qaataa isma siiyo aniga saraxatan waa enjoy gareena amalkan sababtuna waxa waaye xuquuq qof qaadanayo oo laga soo dhigayo oo tuuga de tuugana ceyrsato wax ka fiican miyaa jira warqabta tuugada ka daba taga wixii adduunka ugu fiicnaa ugu qaalisnaa rabaa inay qaataan waa xurriyadaada wax ka weyn miyaa jira maxaa uga tanaasuleysaa marka xoog badan yahay nimanku aan iska dhicin marka intaas aan oo ballan